qabiilka la buufinayo asaagan ku beegsan mayne waxbartaan barwaaqo gaarne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركل كسو دواد مقالدة تحنها أها يعني هل كان كسو باهن جرني كسو بسنة مادة إنجليز كجارهان جريد كسديدات هل كان وحنو بلعبنا أيو يونت كتدبات أو trees and our environment ومعناه تهاي جيدها يديجان كينا مقال كان حكو سابسين هاي questions كو قرن page كسواسني الحاد داوة ده هدي ايتامر كوريس يا صوب وقت جنالك وحكا دالبنا هنا نقو صوبيرتو واسبسكرايب انو سارتو هدي ساهوري نقو صوبيرتي وحكا عدسينا انا مقالك لاغ نو سيسيد شير نجريسيد وما هنسنتهاي حدبا ام بلابنو مقال كينا أما عشر كينا isku soo noqod wanaagsan mar kale waa rajaynaa inaa muuqaalka laag noo soo siisay haddaba aan galno su-aalaha aan ka jawaabayno dabcan hore oo soo sheegnay inay yihiin su-aalaha ama questionska ku qoran pageka 96aad titleka su-aalaha wuxuu yahay marka comprehension questions waa su-aalo la xiriira ama ku saabsan fahanka su-aasha kuwaad waxay tahay marka name magacow amaba sheeg the three basic requirements saddexda baahiyood ee asaasiga u ah of all mankind dhammaan bini aadanka name magacow ama sheeg the three basic requirements saddexda baahiyood ee asaasiga u ah of all mankind dhammaan bini aadanka waxaan dhahaynaa marka jawaab answer the three basic requirements saddexda baahiyood ee asaasiga u ah of all mankind ee dhammaan aadanaha ama bini aadanka include waxay isugu jiraan waxaa ugu horeeya food oo cuntada ah waxaa ku xiga shelter oo ah hoygii ama gabaadkii ay habeenkii ku hoyan lahaayeen maalinkiina ka gali lahaayeen kuleelka qoraxda ama dhibcaha roobka sidoo kale baahida saddexaad ee asaasiga u ah bini aadanka dhammaan nuucoodna ha noqdo waxay tahay waa clothes waa dharka marka saddexda basic ee asaasiga u ah maxaa la yiraahdaa requirementska ama baahiyaha ay qabaan bini aadanka noocu doono diintu doono ha haystee waa food oo cunto ah shelter oo hoyga ah iyo clothes oo dharka ah questionka labaad ku xiga dabcan asagana wuxuu yahay name magacow amaba sheeg one source of medicine hal il oo daawo ah which was used ay isticmaali jireen by traditional doctors dhaqaatiir dhaqameedyada yani traditional doctors waxaa dhahaa dhaqaatiirta ku daaweyso dhaqanka ama maxaa la yiraahdaa herbiska ama geedaha iyo wixii la midka ah marka name magacow ama sheeg one source of medicine hal il oo daawo ah which was used ay isticmaali jireen by traditional doctors dhaqaatiir dhaqameedyada waxaan dhahaynaa marka answer jawaabtu waxay noqonaysaa marka the forest kaynta was waxay ahayd the source of medicine isha daawada which was used ay isticmaali jireen by traditional doctors dhaqaatiir dhaqameedyada the forest kaynta waa isha yani isticmaali jireen was waxay ahayd the source of medicine isha daawada which was used ay isticmaali jireen by traditional doctors dhaqaatiir dhaqameedyada haddii aan sii wadno su-aasha u dambeyso waxay tahay what can be added maxaa lagu dari karaa
to soil ciida to make it si looga dhigo more productive mid wax soo saar badan leh yani ciida maxaa lagu dari karaa si looga dhigo mid wax soo saar badan leh what can be added maxaa lagu dari karaa to soil ciida to make it si looga dhigo more productive mid wax soo saar badan leh marka waxaan dhahaynaa answer dabcan humus can be added waxaa lagu dari karaa humus to soil ciida to make it si looga dhigo more productive mid wax soo saar badan leh marka wax lagu daraa waa humus marka humus can be added waxaa lagu dari karaa humus to soil waxaan lagu daraa ciida to make it si looga dhigo more productive mid wax soo saar badan leh dabcan su'aalihii ku qornaa page-ka 96aad halkaas ay ku soo dhamaadeen waan rajaynaa in la fahmay lana soo xasuustay halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqato janaalka waxaa kaa dalbanaa inaad nagu soo biirto oo subscribe inoo saarto haddii aad hore noogu soo biirtay inaad muuqaalka laag noo siisid shaarna garaysid waa mahadsan tahay ramadaan mubaarak assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh